Washington war goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd uu qarax ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka iskool Bulisiya. Waxa qadka teleefanka ee magaalada Muqdisho haatan si toos ah ugu jirta wariyaha VOA Zainab Abuukar. Zainab, marka hore soo dhawow, marka xigta bal qaraxa meesha uu ka dhacay iyo goorta uu dhacay. aad baad u mahadsan tahay caasha. qarax xoogan ayaa fiidnimadii caawa ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo jidkiisa laga maqlay qeybo badan oo magaalada ka mid ah. qaraxa waxa uu ka dhacay agagaarka dugsiga tababarka ee Generaal Kaahiya ee iskool Bulisiya ee degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. inkastoo aan si rasmi ah loo haynin waxa ama khasaaraha guud ee goobta ka dhashay, haddana waxaa la sheegayaa in uu jiro khasaaro dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray goobihii ganacsiga ee halkaasi ka agdhawaa. gaadiidka gurmadka ayaa daabulaya xilligan dad waxyeelo soo gaartay oo qaarkood dhaawacyo kala duwan qaba. dad goobjoogayaal ah oo aan la xiriiray iyo saraakiil ciidan ayaa ii xaqiijiyey in albaabka hore ee iskool Bulisiya uu qaraxa ka dhacay, laakiin lama oga in qaraxa uu ahaa mid halkaa lasii dhigay gaariga iyo in uu ahaa gaari qof waday uu albaabka ku dhuftay. laakiin goobta waa meel amnigeeda aada loo ilaaliyo, waxaa ku dhow wadooyin badan oo muhiim ah. waxaa jira wado laga isticmaalo dhanka eelaboorka magaalada Muqdisho, halkaasoo ay maraan mas-uuliyiinta dowladda oo keliya. waxaa kaloo jira oo u dhow dekeda weyn ee magaalada Muqdisho. waa goob istaraatiiji ah oo inta badan magaalada Muqdisho wadooyinkeeda ay isku xiraan, haddana lama oga sida suurtagal ay ku noqotay in qaraxa xilli goobta amnigeeda uu aada u adag yahay in qaraxa uu ka dhaco. qaraxa caawa dhacayna waxa uu ku soo aaday iyadoo magaalada Muqdisho si aad ah loo adkeeyey amnigeeda, islamarkaana inta badan la xiray wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimada. islamarkaana hay-adaha amniga dowladda iyo taliska booliskaba ay bixinayeen digniino la xiriira in ay jiraan waxyaabaha qarxasida oo soo galay magaalada Muqdisho, islamarkaana baadi goob ay ciidamada dowladda ugu jiraan siday uga hortagi lahaayeen. markaasi kooban Zainab, mar haddii sidaad sheegtay ammaanka magaalada Muqdisho xilli si weyn loo adkeeyey uu kusoo beegmayo qaraxan, marka qaraxa ma mid lagu sii diyaariyaa goobihii ammaankooda la adkeeyey? lama oga caasha, inkastoo xilli hore ay tahay uu qaraxu dhacay goor fiidnimo ah caawa. faahfaahin badanna aan laga haynin. saraakiisha dowladuna weli wax faahfaahin arrintaa kama bixin in qaraxa uu ahaa mid gaariga lagu sii diyaariyey oo goobta la dhigay iyo in uu ahaa mid qof waday oo albaabka goobta meel u dhow albaabka iskool Bulisiya uu ku dhiftay. saraakiisha dowladda la xiriirina weli way sagaabsadeen. waxa ay sheegeen in faahfaahinta arrintan la xiriirtay in ay dib ka sheegi doonaan, islamarkaana ay xilli hore tahay oo aysan dooneynin in hadda ay arrintan ka hadlaan. laakiin waxaa xusid mudan in qaraxan inuu dhacayo xilli amniga aada loo adkeeyo, digniino kala duwan hay-adaha amniga dowladdu ay bixiyeen, walaaca badanna qeybaha bulshada magaalada Muqdisho ku dhaqan ay qabeen. ciidamaduna ay howlgallo magaalada qeybo badan ay ka wadaan. si kooban maxaad maqashay khasaaraha intuu leegyahay? goobjoogayaal iyo dadka agdhow goobtan la xiriira waxay sheegeen in ay jiraan khasaaro dhimasho iyo dhaawac goobta ka dhashay. waxaa xusid mudan in goobta qaraxa uu ka dhacay inay tahay barxad inta badan ay tababarka ku sameeyaan ciidamada booliiska, inkastoo caawa fiid ay ahayd, laakiin gelinka hore ama subaxdii hore ay tababarka ku sameeyaan. goob barxad inay tahay, ganacsi kala duwan inay ka agdhow yihiin, dukaamo badanna meesha inay ku yaalaan. marka waxaa dhici karteen balse aysan faahfaahinta. aad baad mahadsan tahay. khasaaro dhimasho iyo dhaawac, ambalaasyaduna ay dhaawacyo ka qaadayeen goobta uu qaraxu ka dhacay iyo meelaha ka agdhow. aad baad mahadsan tahay Zainab Abuukar, waa ku salaamaya mar kale. taasi waxay ahayd dhegeystayaal wariyaha VOA magaalada Muqdisho Zainab Abuukar oo khadka teleefanka haatan si toos ugu jirtay iyadoo nala socodsiinaysay qarax xoogan sida la sheegay oo goor dhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka dekeda. halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada